cawaysinkani oo gaar u ahaa bandhigga buug ay qortay Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo ku saabsanaa taariikhdii kala duwanaa iyo waayihii nololeed ay u soo joogtay ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa waxaana bandhigga buuggani soo qabanqaabiyay dalladda haweenku ay ku midoobeen ee Nagaad iyadoona ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Somaliland ganacsato qoraayo aqoon-yahano dhalinyaro haween iyo dadweyne kale oo dhamaantoodba xiiseynaya bandhigga buuggani ciwaankiisu uu ahaa hormuudka haweenka ugu horreynna gudoomiye ku-xigeenka dalladda haweenka ee Nagaad Marwo Khadra Cumar Cismaan ayaa martida ku soo dhaweysay bandhigga buuggani dhamaantiin anigoo ku hadlaya afka dalladda haweenweynaha Nagaad ee soo qaban qaabisay xafladan aadka u quruxda badan leh waxaan idleeyahay dhamaantiin soo dhawaada waxaynu caawa halkan ku gardaadinaynaa ugu wanqalaynaa ugu dabaaldegaynaa buugga ay qortay Iron Lady of Somaliland runtii Adna Aadan waxaan leeyahay caawa oo dhan ilaa intuu waagu ka bariyay haddaynu isnaahno taariikhda Adna Aadan ka sheekeeya waxaan biliif garaysanahay rumaysanahay inaynaan soo koobi karahayn geestooda qoraabooba Yuusuf Ducaale Sahrakiin oo kamid ah haweenka dhalinyarada iyo mas'uuliyiin ka socday shirkadaha Dahabshiil Telesom Som Cable ayaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay adna markaynu qofnimo ugu noqono waa qof degdeg badan oo darban markaan degdeg leeyahayna fudeed maaha laakiin tii waa gurmad waxa ay u degdegto ee ay u darban tahayna waa danguud waxaana ugu mudan daryeelka hooyada iyo ilmaha oo ah unuga qoyska edni waxa weeye dadka hormuudka u ah inay waqtiga qiimeeyaan edna sanadku waa 12 bilood bishuna waa 30 toddobaadka way tirsataa minirka way tirsataa waxay ku dhawaataa inay burcad ka lulato ilbiriqsiga ama secondka adnina waxay hadii markii adduunka ka tagta ay sii noolaanaysaa legasiga inooga tagtay markuu sii noolaado iyadoo adduunka ka maqan marka waa in loo diyaar garoobaa caawa wax badan baan u hibeyn lahaa maama Adna waxa ugu qaalisan aan u hibeynayaa on behalf of Somaliland ladies and on my behalf I will dedicate one lovely hug to my mom. Adna waxa weeyaan qof Ilaahay taan u dhaliyay maskax u dhaliyay Ilaahay hadaayo waxa qura ee ay dadku ku xasuustaan reer Somaliland waxa kamid ah isbitaalkeedaasi mar walba waa buuxa markasta uu buuxana dadka waxa la charge gareeyaan waa oga waxa laba charge gareeyo waa blash intaasaba ugu filanba dadka tusaale kaliya adna waxay awood saartay oo waqtigeedii gelisay oo u hibaysay nolosheedii inay daryeesho hooyooyinkeen iyo ubadkeena siday u noqon lahaayeen qaar caafimaad qaba oo nolol wanaagsan ku noolaada ninka soo wanaagsan hooyaa dhashay hooyaa soo barbaarisay hadayna hooyadii halka soo gaarsiina maanta hebelow lama yiraahdeen hooyo waa daraada waxay maanta hebelow dadku ii hayaano raxmadaadu hooyoy hanti weeyay igu laran runtii intii taqaanay ama ay shaqo ku kulmaan ama nolol ku kulmaan baa sheegtay waxay mudnayd annaguna inta aanu kala soconay warbaahinta iyo intii aanu soo barbaaraynaba warkeeduna soo gaadhay waxaan wanaag hayn kuma ogin runtii waxaan leeyahay adduunyada sidaa aad sharafta ugu heshay ilaahay aakhirana sharafteeda ha ku siiyo wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Somaliland Marwo Shukri Xaaji Baandare wasiirka cadaaladda Cabdirasaaq Cali Cabdi iyo marti kale oo iyaguna si qoto dheer u soo akhriyay buuggani ayaa halkaasi ka hadlay waa shamac noo baxay waa iftiin iyo siraadaan u eegano ilaahay cimriga ha u daayo oo caafimaadkana ha ugu daro ilaahay waxaan ka rajaynayaa haweenka Somaliland ee yar khadraan higsanaya halkii ay tiriyeen hablaha soo maanta soo kacaya jaamacadaha ku jira iyo kuwa sekondariyada ku jira iyo kuwa soo jafaaya ee soo socda inaanu siraadka adni inoo dhigtay iyo taariikhda inoo dhigtay inuu wada raacno anigu dhowr jeer baan isweydiinayay tolo markii la sifeynayay
marka inantani maxay noqon kartaa anu marka maskaxeeda waxa ku soo dhacday inay noqon karto in oran karno inanta geeska malaha geeska Afrikaba anu ma qabo cid la tartami karaysa inay jirto marka adno waa gabadha dadaal waqtigeedii ku soo samaysay Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo ah qoraaga buugani oo halkaasi hadal ka jeedisay ayaa waxay ka warantay sababta keentay inay buugani soo bandhigto iyadoona dardaaran u jeedisay shacabka kala duwan ee Soomaaliland iyo bahda caafimaadka. waxaan buugan bilaabay dhowr jeer ayaan kula bilaabay oo dhigay oo intii waxaan qorayga lumeen in badan cajiladaan ku duubay wayga masaxmeen way lumeen haddaan dib u dhageystay haddana waxyaabo badan baa ila noqon waayay oo aan haddana dib u masaxay oo dib haddana u bilaabay waa la daweeyay qasab baa 2 toddobaad lagu hayay London 2 toddobaad ayaan fikiray oo bal haddii imika aad tadqada laadi lahayd wixii ku soo maray adduunkaaga oo dhan waad la dhiman lahayd markaasaan bilaabay inaan buugan bilaaboon qoro 2005 waxaan doonayaa buugani inuu ahaado inuu ka hadlo taariikhda dalkayga Somaliland adna aadan waa shakhsi taariikhdayda Somaliland ee la xaqiray ee la caburiyay ee la masaxay ayaan doonayaa in xaqiiqda dalkaygu wuxuu yahay in la arko la ogaado waxaan kala doonayaa inaan la dardaarmo haddii halka arday ku jirto ama ciddii danaynaysa bini'aadamka ama ciddii ka hawl gasha inay dad buka u shaqeeyaan in aan dardaarankan uga tegayaa uu yahay qofka bukaad u shaqeynaysa ha eegin gaariga keenay ha eegin banka lacagta u taal ha eegin xariirta ay xidhan tahay ama uu xidhan yahay waxaad ku xisaabtantaa qofkaas markuu cisbitaal la keenay inuu horta go'aan adag gaadhay in cisbitaal la geeyo iyo in kale waxayd kaa doonaysaa wixii ay kaa filaysay oo dhan inay kaa hesho ee wanaagsanaa markaa ixtiraam weligaa ha iloobi qoftanoo weysu kaa dhul dhigtay waa kuu magan waa magan kuu soo gashay oo gurigaaga timid waa kuu marti waa kuu magan ixtiraam bay kaa mudantay iyo soo dhoweyn dardaarankayga gunta haddaydanaan soo dhoweyntaa qofka iska u heli karaynin shaqo kala doono munaasabadda kadib waxaanu dareenkooda iyo inta ay ka aqaanaan Marwaadna Aadan aan wax ka weydiinay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland iyo agaasimaha fulinta ee dalada haweenka ee Nagaad oo iyagu soo qaban qaabiyay bandhigani dareenkayga yacnihii ma cabiri karo adna oo ah qof nagu weyn oo aad u jeclayn maanta ummadda aad arkaysay thousands reer Somaliland ay ka soo qayb galeen inta kale ee bulshada ee daawanaysaana ay ka sii badan tahay trend la gaarsiiyay muxuu ahaayay Twitterkii oo maanta cid inaga horeysa aanay jirin runtii shucuurtaydu aad bay u sareysaa mana soo koobi karo adna inta doonaysa inay ku dayato aniga wuxuu yahay saan u hadlayaa ama dareenka aan halkan ka muujinaya in lagu daydo adna qofkii doonaya wadadeeda inuu maro guusha gaadho inuu buugan akhriyo وعيدروس بيرشية تلفزيون كيونيفرسال هرقيسة